السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan ummadda islaamka meel kasta ku dhaqan yihiin gaar ahaan Soomaalida waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. Ilaahay Ramadaanteeda nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc yar oo ku saabsan dadka hamiga sare leh. Mowduucaas oo aan kaga hadli doono ciwaan hoosaadkiisa aan u sameynayna la hami iyo duco. Hami iyo duco waa laba kelmadood oo kala gaar ah. duco waa waxyaabihii ka soo arooray nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ee lagu ducaysanayo waxyaabaha adigu rabtid inuu Ilaahay ku siiyo. xaggu hamina yahay qofka hami waa qof uu meel hiigsanaya oo raba inuu meesha gaadho. maanta waxaan hami iyo duco iskugu keenay waxa weeyaan in qofka hamiga leh duco aan waayin. qofku hadduu hamiyaba Allahumma farrij hamma al-mahmuumin imsa masaajid baa saa odhanaya. Ramadaanta masaajidada markay witriga tukanayaan ninka aragtay badanka masaajidada aan ku soo darin way yaryihiin Allahumma farrij hamma al-mahmuumin. qofka markuu muadin amba imaamku duceynayo wax kasta waa lagu soo daraya. qof kasto islaam oo duceynayana uu ku ducaystaa Ilaahay ummadda islaamka hamigooda iyo meeshay rabaan inuu Ilaahay siiyo qof walba uga barya. marka hami waa waxyaabo gaara oo Ilaahay keliga ma aha dad badan kuula bariyaan. wax aad keliga Ilaahay baryaysid iyo waxyaabo dad badan oo qaar laga aqbalayo ducadooda ay ku jiraan ay Ilaahay bariyaan waa wax aad u xasaasiya. marka intaanan bilaabin mowduuceena waxaan ku bilaabi doonaa in yaro tixawaan ka tiriyay hamiga. inkastoo aan abwaan ahayn waxaan isku yargeeyaa erayo yar. marka tixaha yar aan isku yargeeyay waxaa ka mid ah hamiga oo nimaka ka hadli doono. waxayna leedahay sida tan: hadafkaaga garo oo hiigsa himiladaadana ha dhayalsan dharaaraha, ha dhagaysan hadallada, hagardaamo mooye hil dhiirigelin wadan. intaa markaan ka hadlayo waxaan leeyahay hadafkaaga garo. qofku waa inuu hadafkiisa gartaa oo waa inuu maadaama imika adduunka dadka ku nool oo dhan ilaa ilmaha yar ciyaalka waa niyeystaa wax hami uu leeyahay, laakiin hamigaa kala sii ballaaran. hami waa hami ku kooban xaafadda iyo intaa maanta qabanayso. hamina waa hami ka weyn oo ka mustaqbalkaaga weeyaan. hamiga ay carruurtu ku fikirayaan waa hami imika inay soo toosaan, ay quraacdaan, ay kubad soo ciyaaraan. hamiga dadka kala weyn. hamiga dadka Soomaaliya waaweyn baa xitaa hamigoodu yaryahay oo ku fikiraya inay soo toosaan, subaxa qaad doontaan, haddana casarka qaad doontaan, halkay qaad ka keeni lahayn ku haminayaan. marka hamiga kala fiican. intaa hore saasaan kusoo qaadanay. waxaan leenahay ha dhagaysan hadallada, hagardaamo mooye hil dhiirigelin wadan. waxaan intaana ka wadaa inaad dhagaysan dadku isku wala mid maaha. waxaa jira dad fara badan oo dhiirigeliyaala iyo dad fara badan oo niyad jabiyaala. dadka niyad jabiyaashu waxyaabo aad qabanaysid ayay ka odhanayaan waxaas ma samayn karaysid, waxaad adigu ma qaban karaysid. marka dadka ha dhagaysan baan leeyahay hagardaamo mooye hil dhiirigelin wadan. isagoo aan sii wado waxaan idhahday kaabacsanaanta hawluhu habaar weeye liitee, ha ka daalin isku hawlahaaga hirgeli kuu yaal hadeer meel. kaabacsanaanta hawluhu waa inaad hawlaha ku hadhay wax islahayd ka qaba inaad ka habaacsanaatid oo amba aad ka yara liidatid oo kasii fadhiidid maaha wax fiican. habaar weeye liitee, ha ka daalin isku hawlahaaga hirgeli kuu yaal hadeer meel. anoo haddana sii wada waxaan ha yaraysan qayrka, ha iska dhigan qof qaaliya, ha ilaabin hawlaha hadhay ee dambeeye, habeen kasta xasuusnow hagardaamo weeye duniyadiye, ha ka daalin isku hawlahaaga hirgeli, ha ka daalin ha isku hawlin micno la-aan, hub u qaado aakhiro. waxaan leeyahay inkastoo hamigii hub u qaado aakhiro. marka waxaan ka wadaa inkastoo qofku inuu hamiyo waxa hiigsado himilaha lahaado, laakiin waa inaanu ilaabin xaggii aakhirana oo aanu qofku waxyaabo diintii ka baxsan aanu ku haminin. hamigu kala fiican yahay. hamiga xagga fiican hiigso. iminka dhammaan adduunka waxay ku tartamayaan adduunka dadka sida Turkiga, wadamada horta awoodda fara badan yeeshay sida Faransiiska, Turkiga, Mareykanka. dadkaas waxay ku fikirayaan in jiilka shanaad hubku ku hubka imika waxay malayaan jiilka shanaad. imika Soomaalidu iska daa inay hub samaysatay, hub jiilka koowaad ma soo iibsatay xitaa waa mayada. hub jiilka koowaad xitaa Soomaalida waxyaabaha dilaya waxaa ka mid ah in uu ka fikiro dadkoodii waaweynaa ee waxgaradka ahaa wax u fikiri lahaa
inay ka fikiraan in ay qaad cunaan kadibna fadhi ku dirir ay dhammaan odayaashiis la fadhiiyey ay ku diriraan waxyaabaha fadhi ku dirirka hadduu waxyaaba dood fiican ahaan lahayd way fiicnaan lahayd laakiin waxaa lagu sii dirirayaa waa fadhi ku dirir xagga qabyaalad laga hadlayo saasaana isku leynayaan laba oday oo islaayey amba laba dad oo islaayay ayaa xaafada kicinaya xaafadihii markaas maxaa laba hablood oo islaayay amba laba gabdhood oo islaayay ayaa xaafado dhan isku kicinaya marka waa inaan horto xagga qabyaaladda waxaa horto kasoo yaro kabanaa qofka islaamka maaha ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhahdeen wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafu ilaahay wuxuu inoogu sameeyey inaan isku kala garano unbuu inoogu sameeyey qabiil laakiin nogumuu sameyn inaan isku qaqabsano qabiil waxaa lagugu sameeyey waa in dadka lagaa garta marka hebel la idhaahdo hebel lagaa garta in qofkaa tahay oo sidaa tahay waa qabiilna wuxuu hoos imanaya un aftirsiintaada ma aha nebi maxamed ba qabiilkiisa la sheegay wuxuu ahaa quraysh haddana ansaare iyo asxaabadii markii ay joogtay markay xukunka qabanaysay lama odhanayn qabiilkaasaa xukunka qabanaya qabiilkaas waxaa laga soo dooranayay qofkooda ugu fiican walow aanay taasi markaa dhacayn oo adduunkii la kala bedelay oon sidaa lagu dooran oo doorasho la gelayo laakiin waa inaan sideyna dhaqan ahaan iyo diin ahaanba nahay waa inaan kusoo noqono waxaan kale aan kasii wadano dhinaceyna haddaan kasii wadano oo aan hadafkeeni kasii wadno mawduuceeni hadafka ku saabsanaa qofka soomaaligii waa in uu xarafka ga tusaale kasoo qaato xarafka ga waa xaraf ka micno ballaadhan markaa sida kale loo eego waa xaraf dhammaan waxyaabaha fiican ee soomaalidu jeceshahay waa xaraf haysta xarafka ga waa xaraf aan anigu usoo doortay inuu noqdo tusaalahayga koowaad ee aan kusoo qaadanayo barnaamijkayga xarafka ga waxaa ka mid ah sida guul qofku inuu guul gaaro waa xarafka ku bilaabmaya waa xarafka ga dadka kubadda ciyaaraya gool xarafka ga buu ku bilaabmaya gool way jecel yihiin dadka kubadda ciyaaraya inay gool dhaliyaan oy kooxda kale la ciyaarayaan gool ka dhaliyaan gool waa waxa ay jecel yihiin soomaalida iyo dhammaan dadka kubadda ciyaara waa kelmad af ingiliisha laakiin soomaali ahaana loo adeegsado ga waa gool sidoo kale geesi waa soomaalida oo dhan way jecel yihiin lagu tilmaamo qofkaasi waa geesi hebel waa geesi hebel waa geesi dhinaca kale ragga soomaalida waxay jecel yihiin inay guursadaan gabdho xarafka ga ka mid a xarafka ga gabdho ka mid a marka leeyahay maaha magaca gabdheed laakiin waa sida geenyo gaari iyo gashaanti saddexdu waa saddex xaraf oo ga ka kacaya oo jecel yihiin saddexduba waa saddex magaca oo ga ka kacaya amba astaamada oo ga ka kacaya oo ay ragga soomaalidu ku doortaan gabadha ay guursanayaan sida kale marka maanse laga hadlayo waxyaabaha ugu fiican ay soomaalidu ugu jeceshahay waa gabay wuxuu ka kacayaa ga sida geeraar ga buu ka labada dhinac ee maansada ugu waaweynba waxay ka kacaan ga sida kale soomaalidu xoolaha ugu jecel yihiin waa geel ga buu isaguna ka kacayaa sida kale dhirta waa la jecel yahay oo geedo amba geel isaguna ga buu ka kacayaa sidoo kale waa la jecel yahay dhammaan dadka dhalinyaradu markay gaadhaan da-da inay guursadaan oo guur wuxuu ka kacayaa ga sidoo kale dhammaan ehelku way isjecel yihiin ehel marka laga hadlayo waa gacal marka ga waa xaraf aan usoo doortay inuu noqdo tusaale iga noqdana soomaalida markaan ka hadlaya inay xaraf isku tusaaleeyaan waxyaaba adduunka wax kasta waa la isku tusaaleeya walow xaraf baa jeedaa waxyaaba kastoo iminka adduunka jira dad isku tusaaleeya jira maadaama aan marka xaraf isku soo tusaaleynayno waxaa ugu fiican xarafka ga inaan isku tusaaleyno xagga soomaali ahaan hadday noqoto luuqado kale xarafo ka fiicnaanaya way jira ga laakiin soomaali ahaan xarafka ga habaa inoogu fiicnaanaya marka laga hadlayo xagga dhaqankeena xagga geesinimada dagaalka xagga guurka iyo gabdhaha la guursanayo xagga maansada xagga xoolaha wax kasta waxaa ugu fiican waa xarafka ga ma jiro xaraf ka haysta ga xagga soomaali ahaan marka waxaan leeyahay qofkii hami sare ha lahaado hamigiisa sare qofkii hami sare lahaado sida xarafka ga waa inuu guul gacal wax kastoo ga ka kacaya waa inuu noqdo qofku marka waxaan kusoo gabagabeynayaa inkastoo tan iyo iska aragti dambe oo aan kaga hadli doono mawduuceena labaad ee aan kusoo jeedin doono maadaama ay tahay fideogii ugu horeeyay anoon hor fadhiya ku hadli doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu